السلام عليكم ورحمة الله وbarakaatu kusoo dhawaada macalin cusub iyo waan iswada karaam marar badanaa waxaan ahay qofka inay nafteeda barato inay important tahay so marka la isweydiiyo qofka siday naftiisa ku baran kartaa waxaan idin sheegaa maanta um, 7 su'aal ama 8 su'aal oo haddii aad isweydiisid aad naftaada ku baran karaysid and it's very important qofka inay nafteeda ogaato because qofka nolosheeda halahay gaarayso waxay ku xiran tahay qofka naftiisa mataqaanaa maxaa tahay adiga horto maxaa yani markii haddii qofku weydiiso like naftaada ii describe gareeya ama ii sheeg naftaada wax igaga sheeg maxaa dhehaysaa so waxaas inaa very important waa inaa sheegi kartid markii qofku weydiiso tell me about yourself markii lagu dhaho inaa ogaa kartid waay so midda koowaad su-aasha ugu koobaad waxa waaye qofka inaa isweydiisid ay important tahay maxaad qiimaysaa horta adi what's important to you maxaa qiimaysaa maxaa agtaada qiimo ka leh haddii lagu weydiiyo inaa su-aasha iska jawaabi kartid waay so it's really important inaa hadda adi isweydiisid su-aalaha aan kuu sheegayo si aa ooga jawaabi kartid markii qof ka hor imaada iyo su-aashaas ku weydiiso su-aasha labaad aa isweydii kartid waxa waaye haddii noloshaada dib u fiirisid maxaa waaye wixii maxaa ka dhihi lahayd so hadda masalan kasoo qabo 30 jiraad tahay ama 40 jiraad tahay 30 sano lasoo dhaafay 10 sano lasoo dhaafay maxaa qabatay maxaa ka dhihi lahayd hadda qof kale taariikhdeeda ama historygeeda ee waxaas tahay sidee aa u aragtaa noloshaada so taasna inaa fiirisid waaye midda kale waxa waaye markii su-aasha saddexaad waxa waaye sidee rabtaa inaa lagugu soo xasuusto qof oo see ahayd markaad dhimatid qof noolaanaysa malaha kulligeen waa dhimaneynaa so markii ay caruurtaada ama ilmaha aa awowaha u tahay ama communityga dadka aa ku dhex nooshahay haddii ay dhahaan hebel wuxuu ahay qof oo see inaa su-aashaas ka jawaabi kartid waay su-aasha afraad waxa waaye maxaa ku fiican tahay adi horto maxaa waaye qofka markay u taqaano waxa ay ku fiican tahay then waxaaseeto way sii dhisi kartaa way kusii dadaali kartaa si ay horumar ugu gaarto qofkan waxii ay ku liidato hadday dhahdo waa soo dhisaa waqti badan ay qaadane laakiin wixii aa ku fiican tahay haddii aa dhahdid waa sii horumar waa gaaraysaa so marka maxaa ku fiican tahay adi qof kasta oo talent ay leedahay waxay ku fiican tahay dad oo very creative aha jiraan oo yani waxba ahayn wax weyn kasoo saari karaa qof oo gacmahooda ku fiicanaa jiraan oo dhismaha iyo yani wax dhismaha ku fiican qof oo waxaa ku jiraan maskaxdooda fiican tahay oo problem solving ku fiican dad oo dhageysashaan ku fiicanaa jiraan oo like dadka oo shaqadeeda qabtaan camal dhageysashaakna ku fiican tahay waa inaa fadhiisan kartid oo qof dhageysan kartid waay taariikhdeeda iyo historygeeda si aa haddana ugu caawintid sidii oo problem solving ee usoo bilaheed qofba waxay ku fiican tahay dad cunto kariskay ku fiican yihiin qof make upka iyo sida oo qurxinta ay ku fiican yihiin qofba waxay ku fiican tahay so adi maxaa ku fiican tahay waxaas ogaa horto markaas waxaasaytasay horumar ugu gaari kartaa sawbi alright so midda kaleeto waxa waaye maxaa walwal kuu keeno maxaa waxyaabaha ka walwashid haddii markaa fadhiisatid oo markaa time haysatid maxaa ka walwashaa dhaqaalaha maa ka walwashaa caruurtaada maa ka walwashaa sidee horumar ku gaar lahayd maa ka walwashaa qof kasta wax ay ka walwasho aa jiro maxaa waaye waxaas ogaa because markaa ogtahay waxa walwal kuu keeno then wax waa ka qaban kartaa haddaadan ogeen way adag tahay inaa wax ka qabatid midda kale waxa waaye inaa ogaatid maxaa jeceshahay adig qof kasta waxay jeceshaha jirto waxaa jeceshahay waxa oo kaa farxiy muxuu yahay waxa oo haddii lagu sheego oo energy kusoo galaayo muxuu yahay what's your passion safarka dadaa jecel book akhris dadaa jecel exercise qofaa jecel qof waxay jeceshahay qof kasta waxaa jirta wax ay jeceshahay oo self care camal ay u isticmaasho ama like it's your to go to dada waxaa jecel inay saaxiibadooda waqtiga qaataan maxaa jeceshahay adi what do you do when you are down or what makes you happy get it what midda kale waxa waaye what are you grateful for maxaa waaye waxa oo aad
ilaahay ugu mahadcelinaysid horumarkuu ilaahay ku gaarsiiye maxay yihiin because qofka also markii og tahay nimcada ay haysato ee wax kaleeto sii suubin karta laakiin adoo ogeen waxaa haysatid ma ogaan karaysid maxaa raadinaysaa so ogaa horta ani maxaa haystaa nimcada aan haysta maxay tahay markaas kadib waxaan ka hadli karaa okay now maxaa iga dhiman maxaan raadi karaa okay so ogaa nimcadu ilaahay kusii maxay tahay and mid ugu dambeysa waxa waaye maxaa adi aaminsan tahay horto qof kasta waxay aaminsan tahay jirto wax kasta qof oo important u ahaa jiro so maxaa waaye waxyaabahaasayta adi aaminsan tahay oo aadan ka tanaasuleynin so for example dad oo waxaa jiraan education important waay caruurteeda inay wax bartaan waa inay jaamacad aadaan waa inay bla 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 you know is that your value familkaaga waxaas muu qiimeeya waxbarashada muu qiimeeya familkaaga muxuu waxa qiimaha famil kale waxa ehelkaaga ku siiyeen ee ku bareen no matter wixii dhaco waxaanayta laakiin ka tanaasulin lagu soo dhahay muxuu yahay and then markaa ogtahay waxa adig bil aaminsan tahay then noloshaada waxay noqonaysaa inay everything else around valuegaasito inuu ahaado like inaan jidka dariiqa mustaqiim ku socdo inaad diinteyda haasto oo wax oo ilaahay ka xanaajinaya aan suubinin no matter what so taas hadday tahay then that's your core belief waay kaas uu ku celinaya waxa waaye tiirkii aa ku taagsanaysa kaasaa ku celinaya wax kasta wuxuu noqonaya around it inuu ahaado waay anyway so those are very simple su'aalo inaa naftaada weydiisid waaye aad ka jawaabi kartid horta markaa ka jawaabtid fiiri marka maxaa marka dhinacee intee ka bilaabi karaa okay wixii lasoo dhaafay aada ma bedeli kartid laakiin meeshaa joogtidaa ka bilaabi kartaa dhammaadka oo storygaaga aa bedeli kartaa so you can't say waalidkay ma isoo barin iyo malaysoo yeelin iyo waxaasita dhan it doesn't matter wixii lasoo dhaafay it's a new day maalin cusub waaye so inta ka bilaab move forward and then dhammaadkaa bedelaysaa insha allah waa intaas iyo nabadgelyo waa nasbada karam asalaamu calaykum